السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقارت شرفتنا كسود هذا يوتيوب بيج كنا ما أنتم حصل فلا قيدونا كولمدي جامبيونز ليج والد حالي كدعي جامبيونز ليج كولمداس أو حالي كوحوا وين وتربض تاريخ يكون قبصتي marka kulmaas falanqeyntooda ayaa isla gali doona iyo natiijooyinka ku soo dhamaadeen intaan u guda galin falanqeyntooda waxaan idin ka codsanaynaa like share iyo subscribe inaad noo saartaan codsi waaye mar walba taageeradiina waa u baahannahay waa idin mar walba idin soo xasuusinaynaa haddii halkaas ugu gudubno oo u guda galno kulamadii xalay la dheelay kulanka ugu horeeyay wuxuu ahaa FC Girona iyo Feyenoord halka guusha ay ku raacday kooxda Girona marka kulankaas wuxuu ahaa kulan oo labadoodaba macnaha aan la kala ogaan karin kooxda Raidont inkastoo la isdhaay xoogay Girona Raidont maadaama sanadkii hore la liigaha ay ka dhigtay taariikh ay ka dhigtay waxa la isdhaay ayaga Raidont kulankan oo niman adag waa la isdhaay laakiin maysan noqonin oo FC Feyenoord waxay cadeysay sababta ay horyaalka wadankeeda mar walba u qaado inay koox awood la tahay ay cadeysay hadda halkaas ugu gudubno Feyenoord iyo Girona kulankoodii xalay sidoo kale xalay waxaa dheelay kooxo kale oo fara badan ay dheeleen kooxaas hadda u guda galno kulankii ku xiga wuxuu ahaa Shakhtar Donetsk iyo Atalanta halkaas oo guusha ay ku raacday kooxda Atalanta 3 iyo waxba Atalanta ogtiin caawa miisaanka culus waaye Talyaaniga kooxiisa badan waa adag yihiin inkastoo habeen hore AC Milan laga badiyay laakiin xalay kooxda Atalanta 3 iyo eber wuxuu ku dhufatay nimankaas laatan waxa waaye Lukman gool u dhaliyay iyo mid kale oo assist uu ka sameeyay halkaas guusha wuxuu ku raacday kooxda Shakhtar Donetsk Atalanta ay ku raacday ande kulanka aliya xalay oo qof walba ka yaabiyo ka fajacay waxay kulanka Aston Villa iyo Bayern Munich yaa isdhaay kooxda Aston Villa Bayern Munich ayaantan kulankii koowaad 7-9 8-5 ku badinaysa kulamadii horeeto laga badi doonaa xalay nimankii Bayern Munich ahay leen ab xoogan ayagoo ku soo galeen oo wax ay reebteen lahayn oo dagaalameen saasay tahay xalay guriga kooxda Aston Villa wax waa ka qaadeen ani company waa ogaayay company horyaalkaas iska waabsana maahane markay baasha dheeda tagto inuu waxba keeni doono waa ogaayay war Harry Kane uu dhilsiyay oo Liso uu dhilsistay Coman Gnabry ishak Leymar Kimmich Kim-min-jae Upamecano Alphonso Davies Neuer raggaasna la watay hal eber looga badiyay xeega taray macnaha waxa waaye weerar xad dhaaf ay soo qaadeen nimanka hal gool aan laga helay gooshi markii laga helay Aston Villa ilaaha gooshan nasiintay dheena dabada xirteenba adeeg ku taala marka waxa waaye kulankaas kulan xalay dadka dhan yaa saadaalina isdhaay kulankaas xalay Aston Villa badan doonta yaa isdhahay kulankaasna wuxuu ahay marka horeeto waxa gool laga diiday horta koow waxa gool laga diiday Torres mid loo Aston Villa gool laga diiday hofseeda noqotay cabaar markay socotay 79 daqiiqo markay maris ciyaarta 20 daqiiqo ka dhimanta gool lash laga siiyay saacada Duran gaay la dhaa u dhali marka waxa kadibna gadaal iyo xiraa ka dhacdo maxay sameeyaan si kasta isugu dayeen waxa gool waa dhali waayeen inkastoo jaanisib badan ay heli kareen banoonida kooxda Bayern Munich ciyaartooyda iimaankii bila ay banooni isku baasayaan nin walba inuu as gool dhaliyo raba Harry Kane xalay soo qaylna garoon ka baxay halkaas daa u gudubno kulanka Aston Villa iyo Bayern Munich waxa sidoo kale dheelay Benfica iyo Atletico Madrid kooxda Atletico Madrid oo miisaanka culus oo macna Simeone oo watay 4 ibra lagu dhiftay xalay waa la yaabaa ku dhawaaliyaa xalay horyaalka Champions League habeen horeeto kooxaha waaweyn badanna xalay kooxyo weyn dhan waa laga bidi waxa 4 ibra lagu dhiftay 13 daqiiqo markay mareysay gaay Turk oo la dhaw Turkiye gool ku furtay hadana Di Maria penalty loo dhigay penalty u dhaliyay hadana goolka saddexaad mid kale dhaliyay goolka afraad Gokcho mid la u dhaliyay oo penalty ay ku shay Atletico Madrid waa waalatay si kasta isku dhistay sanadkan 4 ibra taas qaadatay saasay tahay kooxda Atletico Madrid haddii ciyaartooyga ka maqan iyo wax la dhigi lahaay waxba aan leen wax ciyaartooyga ka maqnaa ilaa abuurta malaha kulli waa u joogeen Griezmann joogay Julian Alvarez joogay Correa joogay isha kulli wada u joogeen weeraryahanadooda saasay tahay gool waa dhali waayeen ka gudub Atletico Madrid 4 waa lagu dhiftay yaa kale ku xigay Dinamo Zagreb iyo Monaco ay dheelin oo isku garab dhaceen 2-2 ku dhamaatay kulankaas ugu xoogay kulan adigu inkastoo
sagaashankii markii maraysay baasha ay roose qaateen kooxda Dinamo Zagreb ayadaa gool hormartay hal iyo eber ayadoo cabaar kadib haddana gool labaad dhashteen waa laga soo hal gool laga keenay gool labaad penalty waxaa loo dhigay nimankan Monaco loo dhigay laba ayadoo sagaashan iyo labadii ay roose qaateen kadibna ciyaarta sidii ku dhamaatay waxaa qaadatay Dinamo Zagreb roose qaadatay sagaashan iyo labadii kadib ciyaarta waa dhamaatay waqti badan ma harinba kulankii kale oo la yaabka lahaayo dadka ka fajiciyo wuxuu ahaa kulankii Real Madrid Lille iyo Real Madrid oo guriga Lille lagu dheelay kooxda Lille waxay uga raasay Real Madrid ali eber Mbappe wado Vinicius Junior wado Rodrigo wado Bellingham wado adeeg ku taala baraad Modric wado waxaasna nothing hal wax qabo waay كان بيدي markii laga macnaha oo dhamaan rabtay oo 3 daqiiqo dheeri lagu daray waxa loo dhigay penalty saaxiibada Lille penalty loo dhigay markii loo dhili penalty wada waa dhashadeen basay gadaal dhigteen cidii Real Madrid dagaal ka bixi waysay jamaacad dhan banooni raad may 12 nimankan gadaal ugu jirto waa loo dhameeyay Real Madrid markii hore waxay ku soo bilaabeen leen abkiska soo qaldanay Endrick iyo waxa loo joogna ku soo bilaabeen Mbappe iyo may ku soo bilaawdaan Vinicius Junior iyo Endrick iyo afkar waxa uu dheelay Valverde iyo Bellingham oo diisha ahay Tchouaméni iyo Camavinga dhaxda ku soo bilaawdeen Militao Rudiger Ferland Mendy Dani Carvajal warniyo waxaase lidii ka raadid ku wadatiin ilaaha kugu dhaari war Lille gacana idii taagay xalay horta formula ay ku soo galeen waxay ahayd 5-3-2 ku soo galeen marka hore tay difaac ku soo talagaleen gool ma hormarin ha marka hore eber iyo goolal badan lidii ka dhalin iyo garoon ku soo galeen gool ma hormarin ha bis waa 8 gadaal ku galeen afka hore hal nin leeb u taagan nimanka waxa la soo kiciyay wixii meesha joogo dhan la soo kiciyay Mbappe la soo kiciyay Garcia midla la soo kiciyay Modric la soo kiciyay Arda Güler la soo kiciyay wax waa qabo waay hal eberkii ku dhamaatay marka Ancelotti isdhaa kuwa yar waa ciyaarka yarka Jansi wuxuu ka faa'iiday waa loogu dhameeyay hal eberka loogu dhameeyay 3 dhibcood laga qaatay Mbappe iyo Vinicius Junior iyo Rodrigo iyo Bellingham iyo Balao dhan 3 dhibcood laga qaatay can you believe that marka waa ku dhacday ka soo xal musiibooyinka tirada badnaa dhacmid ee kamid ah sidoo kale xalay waxa dheelay Liverpool iyo Bologna ay dheeleen Liverpool marka waxay ku raayso kulankaas 2-0 waxa guush ku raacday kooxda Liverpool kulankaas kooxda kaliya xalay koox weyn oo raaysan waxay ahayd Liverpool 12 daqiiqo markii Marisa McAllister gool u dhaliyay haddana markii 75 daqiiqo Marisa Salah gool cajiib dhaliyay xitaa goolka oo McAllister Salah assist samay oo soo dhisay Salah wallahi ninkaas Liverpool legend caadi u noqday Premier League legend waa iska dhaaf Liverpool legend Premier League legend waa goolka labaad soo u dhaliyay daarto ayaabe labi ebertaasi guush ku raacday kooxda Liverpool waa iska cadeed in Liverpool raaydood waa kooxda kaliya weyn oo xalay oo gool gaartay ayda eed sidoo kale xal waxa dheelay RB Leipzig iyo Juventus ayadana gool ay gaarto Liverpool bas ma kooxda weyn oo kaliya gool gaartay marka hore gool looga naxsaday Sesco gool uga naxsaday waa soo bareejayeen haddana marlaad Sesco penalty loo dhigay haddana waa soo bareejayeen Vlahovic labada gool badaliyay kadib gool saddexaad ka heleen 82 markii Marisa Melas gool saddexaad Juventus heshay kadibna ciyaarta meesha ku dhamaatay hadda u gada galno kulanka kale asigana waxa kale xalay dheelay laba kooxo Sturm Graz iyo Club Braga halka Club Braga ee guush ku raacday hal iyo eber kulamada xal dheelisay ahaa Real Madrid waa laga raayay Bayern Munich waa laga raayay Atletico Madrid waa laga raayay Liverpool waa raayay Juventus waa raayay marka xalay musiiba ka dhacday dadka kabta waa loo gidiyay koox badan xalay gambarka macnaha oo la jabay oo kabta loo gidiyay marka xalay adika maxay isdheyseen natiijooyinka kulamaas saas inay noqon doonaan ma filaysan waxay ka musiibooyinka waxay ka mid tahay ajaa'ibta kubadda cagta ka mid tahay koox weyn koox yar xasan ma jirto koox kasta dhibca ka qaadan karto marka intaas ayay ahaayeen kulamadii xalay la dheeray sidoo kale tacawud waxaa jiri doona kulamo oo Europa League hadduu Ilaahay yira ayagana waa soo gudbi doonaa natiijooyinka xalay kulamadii Champions League la dheelay adika maxaa ka dhaadeen comments kan ugu soo wadaaga sidoo kale videogan intaan oo ku egyahay share subscribe like noo saara wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh